السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Siima TV qodobada warkeena aad ku maqli doontiin waxa kamid ah maanta dagaal ayaa ka dhacay aaga Cadayti waxaana waraysiga ka qaadnay qaar kamid ah bulshada aagaas ku dhaqan oo nooga warbixiyay waxa khasaare soo gaadhay dadka Soomaaliyeed ee aagaas ku dhaqan ee leenayso kooxda argagixisada ee canfartu. qodobada kale ee ku maqli doontiin iyaguna waxa kamid ah xisbiga barwaaqo ayaa TPLF wadahada la gali doona. qodobada iyo qodobo kale ee ku maqli doontaan ku soo dhawaada warkiyo faahfaahsan. waa taas ku soo noqod wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkiyo faahfaahsan. kooxda argagixisada ee canfarta ayaa dagaal culus ku soo qaaday dadka xoolo dhaqatada ee qabalaha Cadayti agteeda isla markaana waxaan waraysi aan ka qaadnay qaar kamid ah bulshada aagaas ku dhaqan oo nooga warbixiyay sida uu dagaalku u dhacay. waa tahay in soo dhawow horta bal magacaaga iigu bilow waxaanad iiga warbixisaa dagaalkii in maanta dhacay meesha uu ka dhacay iyo wixii khasaare in soo gaadhay. walaal magacayga waxa la yiraahdaa Cabdilaahi Muuse la yiraahdaa Cabdilaahi Muuse Barra la yiraahdaa dagaalku waxa uu ka dhacay waa ragaale afkiisa waxa weeyaan ragaanayda qowlisatada maalintiiba meel qorsheysanaya ee canfareed iyo xulafadooda yaana weerarka soo qaaday ma garan waan gartay oka bixidii xoolo ku aroorayeen bay sii galeen ku diyaar garoobeen waxay sii fariisteen bixidii hareerahayga oo dhan iyo waxay dhufays ka heleen ku sii dhuunteen waan gartay oka xoolaha ilaa yaroo ka horeysay oo dadka xoolo dhaqatada oo 7 nin aan xoolaha ka horeysay baa isle 7 nin iyo ragii markay isqabsadeenna 7 nin saddex ka dhimatay nin oo ka dhaawacmay dabadii xoolihii baa soo dhaadhacay iyaguna waxay siideen haddana xoolaha soo qasbada oo weerarkii bay sii balaadhiyeen hore u tabiyeen waan gartay marka kumay guuleysan in xoolaha qabsadaan iyaga dhankooda dhimasho waxay yeesheen aan kaaga warramay maaye dhinaciinase 3 nin baa dhimatay 3 nin baa shiiday allin uu dhaawacmay waana dagaal aan kala joogsi lahayn oo maalintiiba meel lagu qorsheeyay waa xulafadhan oo baahaysi oo durul badan ka timiday oo jahadiye eegan kala gudbisana meesha ay maanta dagaalka ku soo qaadeenna sidaan si ogeyn shalayna waa kay kababaxa si meel la ilaahay sidoo kale shalay soo weerareen maantana tani tiixigtay taabay ka dhigeen oo waa ragaale afkiisa warkaas maanta ugu dambeysay weeyaan waa tahay shalay toola kababaxa qabalaha la yiraahdo soo weerareen bay ahayd bal iga warbixi isaga imso qof ayaa ku dhaawactay oo ku dhimatay maxaa khasaare jiray. 2 nin baa dhaawactay 3 nin baa dhaawactay 2 nin oo dhinteen bay ahayd madax dareer loo iyo dareer nusa adu 2 dareer oo loo ana way ka haysteen dhimashada iyo dhaawaca khasaarahuna waa 2 nin oo dhimatay iyo 3 nin oo dhaawac ay ahayd shalay waa taana xagga shalay u dhacday sabab maxaad iiga sheegi kartaa abaaraha ku dhintay galbeedka gobolka City. abaaro kuwa sanadadan ina soo maray ilaa 40 sano intaan garanayno dagaal abaar la mid ah aan baa dhacday oo garanaysaa roobkii guga ee la sugayay waayay oo garanaysaa xagaagii la daba dhigay kaliil iyo xagaa iyo jilaalkii inta la daba dhigo oo abaar xoog leh oo dad iyo dunyadu ay xoog u leedeen bukaanana dhex raaceen colaaduna dhex raacday oo aad iyo aad u dadku ma garanaysaa ay u tabaaloobay baa dhacday waxa gargaara iyo gurmada oo meelaha ma garanaysaa dawladdu ay geysteen aanu ma arag hay'ad yaro hay'ad kalsho yaro la yiraahdo charity la yiraahdo beelaha dadweyne dadka bukooday dad badan baa bukooday shabana ku xeen iyo ma garanaysaa gaajada iyo abaaraha iyo alaabo markay isku beereen aad u leeyahay dadkaas ay
gargaar baa gaadhay iyo hay-adii rasuulka qaran leynaa oo istaageer. waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdilaahi. kaas wuxuu ahaa cabdilaahi oo isagu inooga warbixinaya xaaladda galbeedka gobolka City islamarkaana ka mid ah dadka goobtaasi ku dhaqan. qodobka xiga aad ku maqlaysaan isaguna waa galbeedka. maariyaheena cabdirashiid iyo mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan dan la helay islamarkaana ka waraystay dhibaatooyinka colaadeed, tan abaareed iyo weliba tan caafimaad ee ka jirta goobtaasi. waa kan sida uu waraysigu dhacay. walaal waa bada Sima TV in ku soo dhow magacaaga saxan. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعيق وحمد دباح شراء ودانجيل هو يقال. حاجات قد دقنت هذا. ضل له هلي. واحد نجار بحسها حالة ضل له هلي إيو نولش هذا. حالة ضل له والله. هذا حرينا واقع العالم مري. هذا كده عصور عفرت أي لبض حركات مرتي ساكنة والله والسك عادي. برجونا بساكن. بل أبارت بيلان تكورن. بيلان ويحقون تبيلان أبار روبلان. xoog bay noogu xiyay maanta way noogu daranta biiraan iyo cirlaan iyo abaar oo noogu biiray maanta waa il daranahay maanta wallahi. maxaad xukuumadda iyo dawladda deegaanka meesha ka wajin baa ku daranaysaa? deegaanana soo gaarana soo caabiyo iyo ciidan dagaalgelisana noo fasaxaba ciidanka nala fadhiyaan. xagga abaaraha maxaad baa ku daranaysaa? xagga abaaraha ninkii wuxuu ku soo caabiyo abaaruhu way ku xoog yihiin. shacabku waa roob la'aan, waa abaar, waa biyo la'aan, waa roob la'aan. deegaanana soo gaaro biyo. اوكي ولا aad baad u mahadsantahay. الرحمن الرحيم halkan waa Sima TV oo ku sugan magaalada Danleele. aadar magacaaga saxan. xasan waa bari bala. waxaad ka warbixisaa xaaladda magaalada Danleele. xaaladda magaalada Danleele dhibaato xoog leh oo abaar iyo col ay noogu xiyeen iyo biyo la'aantii oo biyaha aan deeq waayeen dadkii naftiisa ay deeq waayeen dadkii gaaji iyo dhibaato ay wada gaadhay. waxaad noo warbixisaa xaaladii todobadeed u dambeeyay ka dhacay magaalada Danleele iyo kababigiisa. magaalada Danleele nolosha ay ku nooshahay nolol aan abaar iyo dadkii shacabka isugu wareegay oo wada dhibaatoon xaariya dabada ka washo wax alla wax dawana hayni oo adiyaysi anfar ay la wada wareegtay oo dadkii gaaji iyo dunyadiina ay isla wada duubane bixin noolana ay anfarina Ameerika iyo dhaarba qol unsa ugu dulanayso. bal xagga abaarta iyo haddaan su'aal ka weydiiyo bal abaarta ka waran oo abaarta dad roobka imanidan wali wax roobaha wali aan hayna ma jirto. abaarta dad iyo dunyaba dadkiina uba doomay oo ku madhaba daacun baba doomay adduunyada ma jirto. adduunyadiina way maras wixii noolaa jeesay wixii noolaa anfar baa la wareegtay. maxaad baa ku daranaysaa maamulka iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya? in wax ay noo qaban karto hadday wax noo qaban karto ay dhibaatooyinka naajirto wax nooga qaban karto yaan uga baahannahay. kaasi wuxuu ahaa odayaal ka mid ah magaalada Danleele. aad baad u mahadsantahay. allah ilaahayo afar isha dhug sii wad afarna wadanka way ka gayoodi baan leenahay way ka gayoodi ma joogayso cibrigeed bayna joogay way ka xaraasatay cibrigeed ma joogayso annaka dalkan annaka ale oo dawlad baa leh annakuna dadka ku dhaqmay ku dhashaana ma dheerteedaba kaaba dataale hooyada ugu dhashaa baan ugu xagayna geyn masiilkooda bayna geyn lama geynaysadee waan joognaa waan tumayna wiilkeegan kasanayna annagoo cunayna weligeed bayna ka tagayn halkan siday doonto hadday soo fasho camar waxa inaga qaadi karayso ma jirto. annaku haddaan nahay reer Danleele iyo reer Cundhufo waa aabaheed baan ku wasaynaa ma garab marayno way ka xarasata xagayna geynde waan ku dhalanay waan ku aqlinay waan ku dhalay waan ku dhimanaynaa annaku waa sida ayadba kale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقعد وستحن. عبد الله عبد الله بن عربله. حكيت لك أنت. يا شيخ مارد تقيد Danleele. waxaa idin ka warbixisaa xaaladda Danleele iyo nolosheeda ka waran. kulay xaaladda Danleele wallahi xaaladda adag bay ku jirtaa maaragtay dagaal adagna oo haysta abaari waa haysataa oo maaragtay laba kala daran ayaa heshay dadku maaragtay noloshoodu ilaahay un baa uga maaragtay tukro oo maaragtay bini'aadanka maanta ka warbixin kara maaha. gaaja ugu daran haraad baa ugu daran dunyadii way ka dhammaatay abaar iyo afar baa kala kaxaysatay labadaaba ay u kala go'daa adduunyadii wixii dadku ay lahaayeen jiidan maaragtay nawaaxigan maaragtay qabalahan Danleele saantarka hoos imanayoo dhan
abaarta iyo wax rooba idin ka day ma jiro wax rooba wali noo daay ma jirto dhulku wali waa isku oomayahay waa abaartii baa ku jirnaa ilaa 12 bilood ba maartay abaartaas maraysa waxa idin ka warbixisa xaaladii dadweynaha soo laalaamay ciidamada cafartu xoolaha dhacayeen ba xaaladaas noo warbix xaaladaas waa ku taagan oo maartay aan habeen iyo dhalaan midna lahayn oo maartay lahayn ayaanba aan laga oolin oo ladaaba oo maalinba aan maartay laga nasanin de bishan baa ugu inkastay maartay 40 sano ma naasata bishan wax kaga taranna ma jirto amba labadan bilood ku jirnaba gudahooga de maalinba haba yaraatee maartay maalin ay maartay aan wax la dhicin oo dad la leeyin baba jirtaba maanta magaalada Danile maxaa ka socda maanta dagaal ayaa ka jira maartay oo saaka magaalada waa la soo aay oo wala soo weeraray ciidamada cafarta iyo maleeshiyaadkooda iyo maartay dawladoodii iyo shacabkooda isku tuubanay ka soo weeraray ilaa maartay cambile soo weerareen maanta maartay insha Allah taala waa laga difaacay oo maartay waa shacabkii halka deganaa iyo maartay ciidamadu aad iska difaaceen maartay hay'adda UNICEF ayaa ballan qaaday in caawimaad kala duwan ay siin doonto dowladda deegaanka Soomaalida falada warkaasi waxay noo soo koobaysaa wariyaheena Muna hay'adda UNICEF ayaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ka taageeraysa ka hortagga nafaqa darrada iyo horumarinta waxbarashada iyo biyaha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Cumar ayaa qaabilay kulan la qaatay mas'uuliyiinta uu hogaaminayo isku duwaha gurmadka degdega ah ee hay'adda UNICEF Bete Manisville oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi kulankan waxaa laga wada hadlayaa xaaladda abaaraha iyo xoojinta iskaashiga hay'adaha iyo xukuumadda waxayna mas'uuliyiintu sheegeen in dowladda ay kala shaqayn doonaan ka hortagga nafaqa darrada gaar ahaan quudinta dugsiyada si aynan ardaydu goobaha waxbarashada uga baaqan abaarta awgeed kor u qaadida ilbiyoodyada iyo tayeenta waxbarashada haddaba waan eegi doonaa in dadaaladan ay gaari doonaan deegaanka oo dhan iyadoo ay jiraan caqabado badan oo kala abaaro colaado iyo daacuno ka dilaacay galbeedka gobolka City xisbiga barwaaqo ayaa raba inuu heshiis la galo kooxda argagixisada ah uu ku tilmaami jiray TPLF isla markaana laga wada hadlo nabadda falada warkaasi waxay noo soo koobaysaa wariyaheena Zainab xisbiga barwaaqo ayaa sheegay in dowladda federaalku ay aasaastay guddiga wada hadalka xalinta dhibaatooyinka waqooyiga Itoobiya wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ahna xubin golo dhexe oo xisbiga barwaaqo Gideon Timotheus ayaa war-saxaafadeed u qabtay ku sheegay in kulamadii maalmihii la soo dhaafay ay yeesheen guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo ay labada gole jiho u qaateen in si dhibaatada waqooyiga dalka ka taagan loo xaliyo ay ka xisbi ahaan dejiyeen in howlaha nabadeynta si dastuurka waafaqsan oo danta qaranka qadarinaysa loo sameeyo wada hadal waa tahay waxa intaas inagu dhan war waxaan iniga haynaa galbeedka iyo guud ahaanba Itoobiya intaan warkiisa ay ku kulmayno noole kulantay wa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh